على درب الهدى والخير أصول الفقه والتفسير، وحب الله يجمعنا لكي ندعو قلوب الغير. على درب الهدى والخير أصول الفقه والتفسير، وحب الله يجمعنا لكي ندعو قلوب الغير. هنا في مركز التقوى يطيب الوعد والرجوى، لنمضي في العلا أقوى ومن أخلاقنا تأثير. هنا الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة، khudbadeena maanta waxay ku saabsan tahay munkaraadka iyo mukhaalafaadka lagu soo daray xafladaha aroosyada gaar ahaan. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى nimcadiisu way daa'imtaa haddii lagu shukriyo, haddii lagu kufriyana way tagtaa oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ina dhaafinayaa. الله وحليه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هدي أن نمعذ إلهي كشكرنا إلهي سبحانه وتعالى وإنه دائم هدي كلنا وإن الرافس. والله أيها الأحبة، زواجكم ونمع إلهي سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هدي أن ترنا نعمة الله نوغلي ما كوبي كرن جوركو والراحة ودجنان وسكن وماشى قفك كحسره وماشى قفك رجلك حاس كيسة أيو وشيغان كرا همومتيسة يقبات تجرته حاس كنا السيدو كلا وقفك أي واحد ربطة وشيغتو ننكيلا سيداسو هي سكن سيدو إلهي شيغي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والرحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. إذن الزواج ومتعة ومسؤولية أيها الأحبة. لكن أيها الأحبة، وحيابها إنه أي لإلمينيان حقيقة وحاكم إذا وحيابها ما أنت منكرات إلا سوء حقليي قوركي إيا حفلتي زواجك لو صوتري. طيب، حياتنا أيها الأحبة زوجك إيا النمعدي زواجك لو شيغي حدي لو بالله منكر بالله عليك سيديك الضنبين طونتا وحابضتي سيدا هذا عركتين شقاقي يا خلافكي يا طلاقي حالات الأسرية قويسسكي بربر باكبتي. طيب، بركو حزوي ديسا قوري لو بالله أو لو بسي منكر وهبينك وهرية لو سو دوية منكر سيديبو كد دائما كرا. أيها الأحبة، وسؤال باهن إلا سويتي أنه أذن دينا يا قورتين بريالينا ومدنا النصيحينينا. انت إلهي سبحانه وتعالى نصيحتنا هنا وأنفعه أيها وحان ربا إنا سوقد بيو قيبك ميدا منكراتك لو دريمانتا حفلتها أروسك لو صوتري أنا كلي قوني نقو معها magaaladan gooni kuma aha, magaalooyinka ku dhagan gooni kuma aha, laakiin waxaad moodaa wax caam yeelay oo ummadda maanta u sii badanayaan wey. haddii arrintu sidaas tahay ayuha alأحبة، dadka waxgaradka, indheergaradka, culimada, cuqaasha ee dadka masmuucul qowlka, aswaajta, qof walba waxaa laga rabaa inuu kelimadiisa ka dhiibo oo hawshan iyadaa ka hadlo. haddaba waxaan rabaa inaan dhowr arrimood soo gudbiyo oo waxay maanta bannaanka yaalla. arrinta ugu horeysa ayuha alأحبة waa in xafladda marka la tago haddii rag iyo dumar iyo ikhtilaad ay isu yimaadaan oo la isku dhex darmado oo raqsi iyo xumaani meesha ka dhacayso, taa warkeeda ma ku jirno, madama ka hadlayna middaas iyada ah. nacuudu billaahi min haada, allah ayaan ka magan gelaynaa. waxaan ka hadlaynaa mid ay dumar keliya ay joogaan, laakiin dumarkii ha joogaan waxay u qabaan inay keligood yihiin. waxaana lala dhex socdaa intaa sawir gabdhaha la sawiraayo
oo waxa lagu sawiro waxa laga yaabaa inay dhahaan rag ma naakeenin fiidiyana ma keensanin laakiin taleefanada maanta aad aragteen inay noqotay casriga ah mashaakilka la isu soo diray tiknoolajiyada xadiisada ah ayaa qof walba wataa iyagiiba is sawiraya qayb faaxisho iyo xumaan u jeeda gabdhihii sawiraya kadibna xagee la soo dhiga ayuha la xibba baraha internetka iyo facebookyada iyo youtube-ka ayaad arkaysaa iyagoo laga buuxo iyagoon gabadhii aan is ogayn oon war ka haynin walaa shaki xilligaana dumarku inay dhar yaraysanayaan oo ay dhar yaraystaan haddaba gabdhow waxaad ogaataan wax idiin qarsoon inuusan jirin waa inaad ogaataan araadiinnii iyo sharaftiinniina in facebookyada iyo youtubeyada la dhigaayo oo dad idinka midihii ay dhigayaanna waa inaad ogaataan haddaba arrintaa in lagu baraarugo lagana degtoonaado waa arrin aad iyo aad u muhiimsan ayuha alaxibba qofka muslimka ah waxaa laga rabaa ayuha alaxibba inuu allah subxaanahu wa tacaala uu ka boqo qofka weliga ah oo zawjka ana isagaa amaama allaahi arrintaa iyadaa mas-uulka ah reerkiisa meeshuu u diraayo iyo meeshuu ka celinayo waa mas-uuliyad isaga saaran allah baa saaray subxaanah يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مسؤولية أيها الأحبة يا لصار يا أيها الذين آمنوا يا لوتري قوا أنفسكم وأهليكم نارا عند الله الله هذا بياوي أيضا الله الله هو زوجك وأنك مسؤولك ريرك كأه إلهي سبحانه وتعالى صار أخي الحبيب وهذا وقت الحبيبة وهذا قاتا أدو ما أنت وضد من دونتا أما ما أنت ميت هاي وضد من أما بري بعد من أما بري كذب أيو قفك لمن دونا محان كنت جوابي دونا أمام الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة مركان يستاغن محاد أقول جوابي دونتا مركي رير كاو أي كالا دلادان وكو قبصدان أو أولاد دادي حاسكاو وكو قبصدان أو أي كولادان نارت محاد نور ويدي محاد كنت جوابي دونتا سو رسولكم مورا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قف والب مسؤول يكيهي او ريركيسو كيهي او زوجك حاسكو كيهي او زوجته غريغي كتahay oo ubadkeedii ilmaheedii ay ka seetay waxa kamida munkaraadka maanta banaanka yaal ayuha alahibba in aroosiyada qaar la keeno rag heesa ama dumar heesa midkay rabaan ha noqdaan la keensado arrintaas u jeedo halkaan la isugu wada yimaado ikhtilaad oo ka dhaco rag iyo dumar habeenkii oo halka lagu boodboodo arrintaas ayuha alhibba amri dhaahiru albutlan والتحريم والنكران inay tahay arrin xaaraana aad u jeedo allah subhanahu wa ta'ala baa nooga hadlay ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أولئك لهم عذاب مهين طيب ويتخذها هزوا أيها الأحبة ضدك وحا كمدأة ضد إبسنية لهو الحديث محوية هاي وحفصري تذكي اللي قدم بيي تفسير كقرآن وعبد الله بن مسعود يا عبد الله بن عباس أي كمديهين ابن مسعود باوحو كقارتي والله الذي لا إله غيره وحن كقارنا يا الله أن ألك لجرين السجن مؤجين طيب وحن كقارنا إنه الغنى وحلقها الله يا وهست آيات ويكابس ابن عباس باسيدو كلا يسوون كفسر إنه الغنى طيب مجاهد وكفسري واستفزز من استطعت منهم بصوتك مركل اللي كحيسو شيطان كدتسو انت اضربت عدك هذا كدتسو وكحيسو وكفسر انه يهي انه يسونا وحا اللي يراهدو الغناء والمزامير انه يهي يسونا طيب رسولكم وحكورم ايها الاحبه وحا إيمان دون لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وحا إيمان دون أمت ضيدة ضد حراشان دون وحا للا الزنا إيو حريرتا إن الرقو حرتان إيو خمردا إيو معازفتا موسيقى إيو هيصها إسكا حراشان دون أي إيمان دون منكرات الأفراح أيها الأحبة وحا كميدا مانتا waxyaabaha markii arooska la taga buraanburka qayb kamida buraanburka kulligii ma dhahayo dadkii hore way jirtay
كلمات أي استعمال جيرين ولقصوا دوين جيرين دتك سيدا أتيناكم فحيانا نحييكم ولولا حنطة السمراء فما سمنا عذاريكم كلمات ويجري جيرين لكن شعر كأن ما أنت أجيدنه يا قيبها برام بركون أجيدنه أيها الأحبة وقيب أجيد إني تهي كذب وافتراء وبين يا باطل أنجرين ويا تطبع الأمانة يا بباطل بلو أمانة يا ضدك لنا والعاية بباطل بلو عاية وحال الشيء يا وح أنجرين بلا شيء يا الله بوحول سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون حقيقة ما أنت مركو آيات إلهي سبحانه وتعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون مال والبوي قليا مال والبوي حددك وردن هلا تريد dad aan aqoon qof uusan qofku garanaynin magacyo loo keenay inuu u sheego oo amaan ugu dhaqaaqo muxuu sameeyaa inuu qaato libtizaaz al-amwal wuxuu xoolaa in la siiyo waqtigan ummadda uu ka dayaco wahada dajjal waftira ayuha al-ahibba wa baatil weeyaan waa waxaan jirin way arintaasna waa wax u baahan ayuha al-ahibba inaan ka iyadana laga joogo waxa kamida munkaraadka in lagu dhigo fanaadiqda iyo meelaha iyaguna qaaliga oo dadku ayna ka bixi karin oo aragteen aswaajtii ninkii inay mar badan ka celinayaan guurka dhalinyartu inay guursato xitaa ka hor joogsanay gabdhihiina inay noqdaan da'weynaadaan oo iyaguna guur la'aan joogaan bay keenaysaa haddii dadkii la yiraahdo maaragtay ay noqoto arintii sidaas oo kale ay noqoto ayuha al-ahibba munkaraadka waxa kamida waxyaabaha ugu sii daran maanta in xijaabkii la dhigo oo marka goobta arooska la iimaanayo xitaa gabadha xijaaban ay xijaabkii xilligaas oo kale iska dhigto xayaheedii xishoodkeedii ay dhigto oo la isqaawiyo ayuha al-ahibba oo sharcigeena iyo taqaaliideena lagu dhiirado laga tago wallahi waa wax laga xishoodo ayuha al-ahibba wax laga xishoodo waana iimaankii qofka oo daciifay way waxa kamida sida oo kale munkaraadka afraaxda in xafalaadka lagu daaho waa mid iyadoo ugu sii daran oo magaaladeena iyo magaalooyin kala bahaysata in xafladda lagu daaho oo maanta aad aragtay in lagu gaarayo qaarkood la sheego 12 habeenimo inay bilaabanayaan ay dhamaanayaan subaxii laga iimaanayo aw mas'uuliyadii ayaha ahibba layna saaray aw gabadhu waxay mas'uulka ka ahayd aw gurigeedii aw ninkeedii aw caruurteedii aw mas'uuliyadii ilaahi subhanahu wa ta'ala oo saar aw ninka naftiisa mas'uuliyadii Allah saaray oo leeyahay ya ayyuhal ladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naar madda yuslima ayyuha al-ahibba lagu dhaqmaya arinta ragga iyo dumarkay ka go'daa inteenan fadhida iyo in kale naga maqan weey gabdhaha fadhiya ragga fadhiya waa in la bedelo arooska la iimaanayo midnight ee subaxii lagu gaadhay aroosyada waa in fiidkii la tago oo la soo dhameeyo xilli fiidnimo la soo dhameeyo qofkii tagaya meelaha munkaraadka haddii lagaaga yeero waxa laga yaabaa inuu qofku arooska haddii lagu yeero inaad tagtaay waa waajib weeyaan laakiin hadday munkar ka jiro oo munkarkaana aadan zuulin karaynin inaad ka joogto ayaa waajib kugu noqonaya marka haddii meel xaraana lagaaga yeero inaan la tagin bay noqonaysaa haddii aad zuulin kartana waa in la zuuliyo waa inteenanoo isu kaashanay oo rag iyo dumar la isu kaashaday in la bedelo nidaamka isaga lagu socdo ayuha al-ahibba hawshaana insha Allah ta'ala waan sii wadi doonaa ayuha al-musalluna sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati wa salam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة